dhakhaatiirta tabaruca ah ee wagaasimuhu sheegay waxay maamul ahaan hoos tegayeen hay-ado iyo ururo Falastiini ah oo kala duwan, waxaana ka mid ahayd hay'adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta. waxaa dhakhaatiirta isna inta badan la kulmi jiray soona dhoweyn jiray hogaamiyayaasha Falastiiniyiinta sida hogaamiyihii Falastiiniyiinta ee Yasser Arafat oo xitaa mararka qaarkood u soo raaci jiray xeryaha qaxootiga, isbitaalada iyo xarumaha agoomaha lagu daryeelo, ama u yimaada iyagoo hawl maalmeedkooda ku guda jira si uu niyadda ugu dhiso uguna muujiyo inuu ku faraxsan yahay dadkan dalalkoodii uga yimid inay caawiyaan dadkan dhibban. Amiina waxay heshay fursad dahabi ah oo ku dhexgeli karto mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta si ballaadhan ugu dhex milmi karto hay'adahooda maamul. waxay aragtay in imika ay hawlgalkeedii sirdoon u gudageli karto si fiican oo intii ay filaysay aad uga ballaadhan aadna uga fursado badan. goor galabnimo ah oo ahayd 22 bishii 10 sanadkii 1973 ayaa si kadiisa telefoon ugu soo dhacay gurigii ay Aamina deganeyd. markii ay telefoonka qabatay codka kaga soo baxay waxa uu noqday Maroon Hayek. horeba waa uu la soo hadli jiray, laakiin markan dhowrkii eray ee waxay ku yiri aysan noqon kuwa ka farxiyay. 6 qof oo ka tirsan sirdoonka Mossad ayaa lagu xiray magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. marka uu intaas ku yiri inta ay dhaqso sameecada telefoonka u saartay ayaa waxay daaratay telefishinka qolka u yaalay. 6 qof oo mid ka mid ah gabadh ahayd kiiska loo haysto waa inay rasaas ku dileen nin u dhashay dalka Morocco oo mudalab ka ahaa maqaaxi ku taala degmada loo dalxiis tago Lillehammer oo ku taala dalka Norway. sidaas ayuu noqday warka Aamina kaga soo booday telefishinka. waxa uu warku intaas ku daray in 6 qof ee booliska Norway u taxaabeen xabsiga ay ka tirsanaayeen sirdoonka Yuhuudda ee Mossad. sababta ay ninkan u dileen ay tahay Mossad waxa ay u malaysay in ninkani uu yahay Cali Salaama. warka ay telefishinka ka daawatay waxa uu sheegay in kooxda lagu qabtay Norway ay ka mid yihiin unur lagu magacaabo K-Idon oo macnihiisu noqonayo waranka, waxayna ka tirsan tahay wakaaladda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. basaasinta la xiray waxay qirteen inay ka yimaadeen Israa'iil si ay dabagal ugu sameeyaan una khaarajiyaan Cali Salaama. Amiina markay warkan dhageysatay argagax iyo baqdin ayay la kulantay. waxa uu madow badani ka soo galay waxa ay ku dambeyn doonto. waxay isweydiisay sababta sirdoonka Mossad u doonayo inay dilaan ninkan oo iyadana u soo diray arrintan ka duwan oo ah inay soo barato oo ay xog ka keento. waa run oo qof kasta oo caadi ah waxa uu isweydiin lahaa su'aalahaas oo kale. waxa uu ka shakay lahaa daacadnimada Mossad ee arrinta Salaama la xidhiidha, laakiin waa cidda ay ka maqan tahay in arrimaha siyaasadda iyo sirdoonku ay maraan jid aad uga duwan kan caadiga ah ee maskaxda caadiga ku soo dhacaya, isla markaana ay leeyihiin halbeegyo u gaar ah oo lagu qiyaaso. shaqada sirdoonka iyo siyaasadda ayaa ay tahay inaan la dayicin fursad walba oo la helo, isla markaana aan 100% la isku halayn xogta la hayo. haddii Amiina loo diray inay soo barato Cali Salaama, xogna ka soo hesho oo la sheegay haddana inuu Cali yahay ninkan mudalabka ka ah maqaaxida ku taala Oslo, maxaa diidaya inaan la isku halayn warka sheegaya inuu Beirut joogo? waa in la khaarijiyaa kan jooga Oslo si halkii dambiiluhu ka baxsan lahaa naf beri ah ay u dhimato. ugu dambeyn Aamina waxay qaadatay go'aankeeda ah in waajibkii loo soo diray ay sidiisa u filiso oo xitaa dilka Salaama ee Norway aanay ku joogsan ee Salaamaha la dilay quddiisa ay ka raadiso Lubnaan sidii awalba qorshuhu ahaa. isla subaxii xigay galabtii ay warkan maqashay waxay la hadashay Hayek oo ay u sheegtay inay doonayso inay mar labaad raadiso Cali Salaama. waxay isku raaceen hoteelkii Coral Beach. hoteelku waxa waa dhismo weyn oo 3 sarood ka kooban 95 qol oo mid kasta ay gaar u leeyahay xamaamkiisa iyo adeegyada aasaasiga ah. barxadiisa qayb ka mid ahna ay ku taalay barkada baasha oo si casri ah u dhisan. Amiina markan waa ay ka nasiib badan tahay sideedii hore markii ay hoteelka Coral Beach galeen oo ay ku fariisteen kuraas taalay barkada dhinaceeda oo ah dhinaca ku sii jeeda badda. Hayek oo dareen naxdin ka muuqato indhihiisa laga akhrisanayo ayaa farta ugu fiiqay ninka xigay dhinaca badda, waxaanu cod xanshashaaqa ku yiri eeg wakaas Cali Salaama. Cali Salaama waxaa caado u ahayd inuu yimaado hoteelkan, sababtuna waxay ahayd hoteelkan oo ahaa mid aad loo ilaaliyo amnigiisa, isla markaana leh fadhi uu qofku si fudud u arki karayo haddii uu cadow isku dayo inuu sharqool ku khaarijiyo. marka uu hoteelka joogo dadka dareenka amnigoodu shaqaynayo waxay arki jireen 3 baabuur oo kuwa militariga ah, taas oo ah calaamad ay ku garanayaan inuu joogo qof aad u muhiim ah hoteelkan. waxa ay ahayd ilaalada gaarka ah ee ninkan ay Aamina al-Mufti raadinayso. askarta banaanka taagan ka sakow
waxaa gudaha lagu arki jiray askar dhar cad ah oo hubkoodu u qarsoon yahay, kuwaas oo taagan kadimada hodheelka, goobaha gaadiidka la dhigto, beerta hodheelka ee Cali Salaama ay ka arki karaan, iyo guud ahaanba qaybaha hodheelka. Mid ka mid ah qolalka wajahada hore ee hodheelka soo eegaya, gaar ahaan qolka barkada dabaasha soo xiga, ayuu Cali Salaama hodheelka ka degi jiray maalmaha uu doonayo inuu joogo halkaas. Cali Salaama markan ay Aamina aragtay kuma uu dabaalaynin barkada, waxaase ka muuqatay inuu hore u galay, gaar ahaan halka uu fadhiyo ayaa laga garanayay in dhinaca barkada ka galay uu yahay qaybta loogu talagalay madaxda iyo dadka muhiimka ah. Waxaase ku teedsanaa qolal yaryar oo muraayad ka samaysnaa, kaligiis ayaa uu qolka ku jiray, laakiin sida ay sheegeen dadka yaqaana, mar walba waxaa diyaar u ahaan jiray bastooladiisa nooca dirandooriga u dhaca ah oo buuxda, xaalad feejiganna waa uu ku jiray. Cali Salaama da'diisu waxay ahayd 33 sano jir, waxa uu ahaa nin jirkiisu dhisan yahay, joogiisu dhammaystiran yahay, qurux u dhashay, qaab dhismeedka duleed ee jirkiisana laga dareemayo inuu ciyaartooy yahay. Haddii aynu doono inaynu Cali Salaama si kooban u tilmaamo qaab dhismeedkiisa jireed iyo quruxdiisa, waxa inooga filan inuu ahaa nin u qalma xaaskiisii cusbaa ee Georgina Rishqi, oo ahayd boqoradda quruxda adduunka. Georgina oo markaa da'deedu 22 jir ahayd, waxaa dhalay laba waalid oo Masiixiyiin ah. dhalasho ahaan aabaheed waxa uu ka soo jeeday dalka Lubnaan, hooyadeedna waxay u dhalatay dalka bariga Yurub ku yaala ee Hungary. Waxa uu ahaa qoys maalqabeen ah, iyadoo waxay 16 jirkeedii ku guuleysatay inay noqoto boqoradda quruxda ee dalka Lubnaan. 2 sano markii laga soo wareegay oo ay da'deedu ahayd 18 sano, waxay ku guuleysatay inay noqoto boqoradda quruxda ee dunida oo dhan. Waxay ahayd gabadha kaliya ee Carbeed ee ka qayb gashay tartanka quruxda ee Miami Beach oo ku taala dalka Mareykanka. Waxay ahayd qalanjo, timaheeda dheer ee madowga ah iyo indhaheeda cagaaran, dibnaha quruxda badan, ama guud ahaan jirkeeda cudoon marka la eego ay hubaal tahay in nin kasta oo arkay ku hamiyi jiray inuu barto. Xitaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo markaa ahaa gudoomiyaha gobolka Georgia ayaa u rumowday riyadiisu, taas oo la ogaaday markii la arkay isagoo sawir kula jira boqoradda quruxda adduunka oo dhan, taas oo xidhan toob nooca lagu caweeyay oo midabkiisu madow yahay, qaybo badan oo quruxda jirkeeda ka mid ahina bannaanka taalo. Si kasta ha ahaatee, Georgina qudheeda waxaa qalbigeeda mashquuliyey wiilka quruxda badan ee muruqyada leh, Cali Salaama, oo leh jir jimicsi u dhisay. Jacaylka ay u qabto ayaana keenay inay ku gasho miyiranimo, kana indha la'aato in Cali Salaama uu yahay xaasle ay wada joogaan gabar hore oo ay ubad isu leeyihiin. Aamina maysan rajaynayn inay sidaas fudud ku arki doonto ninka ay dowlado badan sirdoonkoodu laayihiin muuqiisa si ay tallaabo uga qaadaan. Iyada iyo Xayig waxay muddo fadhiyeen miis yar oo ku hoos yaala dalaayadaha hoteelka. Cunto ayaa ay dalbadeen, laakiin sheekada iyo kaftankii hore ee dhex mari jiray waxa ugu wardambeysay markaa ay isha saartay Cali. Si aan libiqsi lahayn ayayna dhaayaheeda ugu maqnaayeen ninkan yaabka badan ee loo soo diray dhaqdhaqaaqiisa. Cali Salaama kama u warqabin in maanta cadow u soo dhuuntay hoteelka. Sidiisii caadiga ahayd ayuuna dib ugu laabtay dabaashiisii, halka uu barkada ka galiyeyna kama aysan fogeyn halkii ay fadhiday Aamina. Bannaanka qolka gaarka ah ee muraayaduhu u xidhan yihiin ee uu Cali Salaama ka galiyay barkada, waxaa dhinacyada bannaanka ka taagnaa 2 nin oo muruqyo waaweyn. Waxay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee Cali Salaama. Haddii ay markii hore araggiisa raadinaysay, imika qorsheeda cusub waxa uu noqday sidii ay isu baran lahaayeen Salaama, waxaanay nafteeda ku qabtay kalsoonida ah inay gacanta ku dhigi doonto. Maalintaa wixii ugu muhiimsanaa ay qabatay waxa uu ahaa inay si fiican indhaha uga buuxsato muuqiisa si ay dadka uga dhex garato oo aanu mar dambe uga khaldamin. Waxay si waafi ah uga bogatay wejiga iyo muuqaalka guud ee Cali Salaama. Maalintaa wixii ka dambeeyay waxay bilowday inta ay ka soo dhuumato Xayig inay si joogto ah u timaado hodheelkan, iyadoo hamigeedu yahay inay maalin heli doonto fursaddii ay ku baran lahayd Cali Salaama. Xogta kale ee muhiimka waxay ahayd inay ogaatay in Cali Salaama uu hodheelka uga kiraysan yahay qol joogto ah, taasoo u xidhan haddii uu seexdo iyo haddii uu ka maqan yahay labadaba. Sida ay Aamina qudheeda fahmaysay waxay ahayd arrin ammaan oo Cali Salaama uga gol lahaa inuu ku raad gato. Marar kala duwan oo Cali Salaama hodheelka yimid waxaa indhaha ku dhuftay qalanjadan hodheelka kaligeed fadhida. Inkastoo ay Aamina dareentay in indhaha Cali dhowr jeer ku dhaceen, haddana waxay weyday fursaddii dahabiga ahayd ee ay ku baran lahayd Cali Salaama. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la kulantay arrin aad uga farxisay, iyada oo kaligeed hoos fadhida kursi raaxo oo hoos yaala dalaayad taalabada xilligeeda oo gudaha hodheelka ah, ayuu Cali Salaama si kadisa hodheelka u soo galay. Toos ayuu u soo abaaray kadinka dhismaha hodheelka. Aamina waxay u haysatay in Cali uu ku socdo qolka uu ka degan yahay hodheelka, laakiin markii uu la sinaa halka ay fadhido
ayuu si kariisa miiskii ay fadhiday ugu soo baydhay. Inta uu si anshaxi ka muuqato u dul istaagay ayuu dhowr su'aalood weydiiyey. Meel aan ka fogeyn kursi yaalayna soo qaatay oo soo agdhigtay. Waxaanu markiiba ku bilaabay bariido iyo hadallo u eg isbarasho. Maalintaas oo ahayd bishii 9aad sanadkii 1973, jawigu aad ayuu u kululaa. Waxaan xiiseynayay inaan dabaasho aniga oo ku raaxaysanaya neecawda qabow ee dhacaysay. Koob biyo ah oo aad u qabowna jidhkayga ku qaboojinaya ayaan si kadis u arkay ninkan hortayda fadhiya. Waa Cali Salaama oo inta uu bariidiyey kursi hortayda soo dhigtay. Naxdin ayaan dhididay, xubnahayga waan maamuli kari waayey. Waxa uu isugu kay sheegay inuu yahay ganacsade Falastiini ah. Si raaxo leh ayaa u fadhiistay markii aan u sheegay inaan aniguna ahay dhakhtarad ka timid dalka Urdun oo halkan u timid inay tabaruc ugu shaqeyso cisbitaalada lacag la'aanta ku daryeela dadka reer Falastiin. Amina waxay sheegtay in laga soo bilaabo maalinka ay Cali Salaama la kulantay ilaa maalinka ay xusuus qorka sameeynaysa aan weli ilaawin kurbadii iyo gariirkii wadnaheeda ka baxayay cabsi awgeed. Iyadoo arrimahaas ka sii hadlaysana waxay qortay, waxaan xasuustaa sheekadii wacnayd ee dareenkayga oo dhan u jeedisay xaggiisa. Gudagalkii shaqada. Amina waxay aad isu sii barteen Cali Salaama, taasoo u fududaysay inay u furmaan albaabo badan oo hadda ka hor ka xidhnaa. Waxay noqotay qof ay ku kalsoon yihiin mas'uuliyiin badan oo Falastiiniyiin ahi. Xidhiidhkeeda barashana waxa uu gaadhay Yaasir Carafaad. Waxaa gashay rajo iyo raynrayn cusub. Waxaa ku soo noqotay nolosheedii. Waxay nafteeda ka dareentay kalsooni badan. Amina oo ka faa'iideysanaysa barashada Cali Salaama waxay aad u dhex gashay kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin, gaar ahaan mas'uuliyintooda oo ay tustay xamaasad badan iyo dareen been abuur ah oo ay ku tusaysay sida ay ula dhacsan tahay habka ay wax u wadaan iyo halganka gobonimo doonka ah ee ay ku jiraan. Waxay booqatay xero kasta oo ay degan yihiin Falastiiniyiinta qaxootiga ku jooga dalka Lubnaan. Amina indheedu waxay u ahaayeen kaamiro ay ku sawirto wax kasta oo dhacaya. Sawirka muuqaalada xasaasiga ahna ay ku qaado si ay ugu kaydiso maskaxdeeda. Dhegaheedu waxay u ahaayeen cajalad casri ah oo ay ku duubto sirta iyo wax kasta oo xasaasi ah oo ay ka hesho madaxda reer Falastiin. Waxay xafiday meelaha ay ku yaalaan boqolaal xarumood oo xasaasi ah iyo magacyadooda. Waxay sidoo kale xusuusteeda ku kaydisay noocyada hubka iyo qaybaha tababar ee Falastiiniyiinta. Waxaasoo dhan inay hesho waxa u fududeeyay kalsoonida ay ka haysatay mas'uuliyiinta reer Falastiin oo sabab u noqday inay si maalinle ah u hesho xogo aad u xasaasi ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada Falastiiniyiinta iyo hadba howlaha ay qorsheynayaan. Iyada oo u diraysay sirdoonka Israa'iil oo si joogto ah uga dalbanayay inay u soo dirto warbixino waafi ah. Dukumeentiyada rasmiga ah, khariiradaha iyo sawirrada ee aan warlelisku qaadi karayn iyaga oo sidooda ah ayay ku ridi jirtay sanduuq qashinka lagu qabo oo gurigeeda bannaankiisa ku yaalay. Sanduuqan oo ay afgarasho ahaan iyada iyo Mossad ugu yeedhi jireen boostada geerida. Waxaa kale oo ay mararka qaarkood dhigi jirtay mid ka mid ah suuliyada hoteelka Carol Beach oo marka ay waqtiga la dhigayo iyada iyo Mossad isla gooyaan inta ay suuliga gasho soo dhigi jirtay. Isla markaana ay soo weedaarin jireen basaasiin kale oo Mossad Beirut u joogay, shaqadooduna tahay in wixii suuligan ama sanduuqa qashinka lagu rido ay qaadaan si ay u gaadhsiiyaan xarunta Mossad ee Tel Aviv. Amina oo waraqaha xusuus qorkeeda kaga warramaysay mid ka mid ah dhacdooyinkii naxdinta badnaa ee soo maray dukumeentiyada ay qaabkan u gudbin jirtay ayaa qortay, waxaanan iloobi karin maalin maalmaha ka mid ah oo aan la balansanaa Cali Salaama. Aniga iyo gabadh aan isku shaqo ahayn oo sidatay jinsiyadda dalka Qubrus ayaa saacaddii ballantu ahayd ka hor nimi hoteelka Carol Beach ee aanu ku balansanayn Salaama. Waxaanan shandanta gacanteedii ku jirtay ku watay 24 warqadood oo ah waraqaha aanu khadku ka muuqan ee ay basaasiintu warbixinadooda ku qoraan. Waxay ahaayeen qoraallo, warbixino iyo sawirro sir aad u xasaasi ah xambaarsan. Waxaanu qorshahaygu ahaa inaan helo waqti aan waraqahan ku dhigo suuliga ka hor inta aanu iman. Cali Salaama ayaa igu soo kariyay oo waxa uu waqti yar ka hor yimid xilligii ballanta. Sidaa awgeed waxa uu yimid anigoo aan wari waraaqihii dhigin suuliga. Inuu arko mid kaliya oo ka mid ah waraaqahan aan sitay waxay sababi karaysay inuu si dhaqso ah bastooladiisa laabtayda ugu faaruqiyo. Maalinta maskaxdaydu waxay ku jirtay xaalad waali ah. Dareenkayga oo dhan ayaan la xakameyn karayn. Saaxiibada oo hareer fadhidayna waxay iyadu la dhiman gaadhay cabsi. Hadalkaas Amina waa calaamad ina tusinaysa sida ay Amina ugu suurto gashay inay si xorriyad ah basaasnimadeeda uga dhex wadato hogaamiyayaasha Falastiiniyiinta iyo ragga wax iska caabinta ee aaminay. Waxay ku guuleysatay inay Israa'iil u gudbiso xogo badan oo muhiim ah. Amina
waxay xafiiska Yaasir Carafaad booqatay 3 jeer si ay indhaheeda ugu soo aragto wax badan oo ay u baahnayd. Yaasir Carafaad oo ahaa nin soo dhaweyn badan isla markaana aad u jecel dhalinyarada ayaa aad u soo dhaweeyay Amiina oo u haystay aqoon-yahanada Carbeed oo dalkeedii Urdun uga timid wax u tarka iyo wax u qabashada shacabkan dhiban. iyada oo daacad ka dhigaysa ayuu u soo jeedisay talooyin badan oo si qadarin iyo dhaganuglaani ka muuqato u dhageystay. Amiina waxay ku guuleysatay in albaabada Yaasir Carafaad mar walba u furnaadaan goor walba oo ay doontana la kulmi karto. muddo ayay Amiina ku jirtay xaaladan oo ay aad uga heshay isla markaana ay ka heleen mas'uuliyiintii Yuhuudda ahaa ee soo dirsaday oo ay si joogto ah u gudbiso warbixino anfacaya iyadoo u sheegaysa hadba halka xaalka Falastiiniintu maraya iyo waxa ay qorsheynayaanba. maalmaha ka mid ah ayay Amiina kaligeed bun u doonatay maqaaxi ku taalay xeeliga badda oo la yiraahdo Dolce Vita. maqaaxidan oo lagu leersado waxa inta badan tagi jiray dadka ladan iyo mas'uuliyiinta. si kadis ayaa maqaaxida waxa u soo istaagay baabuur military oo noociisu jiib ahaa, waxaana si kadis uga soo baxay 3 nin oo Falastiiniyiin ah. 3 nin waxay si degdeg ka muuqato u soo abaareen kursiga Amiina fadhiday oo markaa koobuna loo keenay. mid ka mid ah 3 nin ayaa si dabacsan ugu yiri, waa aanu garanaynaa inaad halkan joogto, waxaad ku amran tahay inaad haddan raacdo. naxdin ayaa ay wadnaheeda maamuli kara weyday, xitaa inay istaagto ayaa awoodi weyday, gaar ahaan markay ay eegtay wejiyada raggan doonaya oo indhahooda aad moodaysay inay ka soo baxayaan gantaallo wadnaha abaaraya. kaabsoolkii sunta ahaa. Amiina waxaa lagu soo qaaday baabuurkii jiibka ahaa oo xawaare aad u sarreeya la soo dhex jeexay shaaricyada magaalada Beirut. marka ay eegto midigta darawalka gaadhiga ku waday oo ay muraayadiisu furnayd, waxay arkaysay dhismayaasha jidka hareerihiisa ku yaala ee sida hilaac ay uga gudbayso, halka oo ay ka qiyaasi kartay xawaaraha aanay maskaxdu sawiran karin ee uu ku socdo baabuurkan ay saaran tahay. arrintan ayaa ku kordhisay cabsida, baqdin darteed ayay xitaa ku dhici weyday inay su'aal weydiiso nimankan watay si ay u ogaato cidda ay yihiin, waxa ay dhab ahaan ka doonayaan iyo halka ay u wadaan. markiiba waxa Amiina maskaxdeeda ku soo dhacay hal cashar oo ka mid ah kuwii la baray waagii ay qaadanaysay duruusta sirdoonka iyo xirfadaha basaasnimada. waxa uu ahaa in marka ay gacan gasho ama ay hubiso in cidda haysa ay tahay cadowgii, inay liqdo xabad kaabsool ah oo si fudud nafta u dhaafinaysa. waa farsamo ay isticmaalaan sirdoonka Yuhuuddu si ay uga hortagaan haddii la qabto basaasiintooda in laga helo xoog. xubin kasta oo sirdoonka Yuhuudda ka mid ah waxaa la siiyaa xabad kaabsoolkan ah oo ka samaysan sunta dilaaga ah ee lagu magacaabo poison cyanide capsule si uu u liqo saacadda ugu adag. ujeedaduna tahay inay si fudud u dhimato. waxay cabsi ka qabtay haddii farsamadan ay dayacdo in marka gaariga laga dejiyo ay askartani baadhayaan, ama marka ay xirxiraan ay arkayaan kaabsoolkan oo u noqdo marag caddeeya basaasnimadeeda, isla markaana ay fursaddii dhimashadeeda halkaas ku dhaafto. Amiina waxay go'aansatay fursadda ugu horreysa ee suuragelin karta inay la soo baxdo xabaddeeda kaabsoolka ah ee ku dhex qarsoon biinka timaha ee madaxeeda ku xidhan. inay ka faa'iidaysto fursadda oo ay si degdeg ah u liqdo ayaa ay taladeedii ku soo aruurisay. muddo markii baabuurkan xawaare sare kula socday ayuu si kadisa jidkii weynaa uga baydhay, waxaanu afka saaray jasiiro tegaya xerada qaxootiga ee Shatila. markiiba waxay is weydiisay, Falastiiniyiintu ma xarun xabsi ah ayay ka dhex samaysteen xerada qaxootiga? iyada oo maskaxdeedu aanay weli ka fikirin jawaabta su'aashaas ayaa waxay ku baraarugtay hadalka askari ka mid ah raggii waday oo kule darawalka, kordhi xawaaraha aynu ku soconno, dhaawaca laga keenay koonfurtu aad ayuu u badan yahay. markaas ayaa ay neefi ka soo baxday sidii wax hurdo laga soo toosiyey oo kale. ayay mar kaliya ku jeesatay askarigii hadlayay oo ay ku tiri, maxaa dhacay? waxaan ugu jawaabay, waa dad ku waxyeeloobay weerar cirka ah oo Israa'iiliyiintu ku qaaday saldhig ciidan oo ay Falastiiniyiintu ku leeyihiin meel ku dhow isgoyska xerada qaxootiga ee Caynu Xilwa. Amiina inta ay naxdintii ka duushay ayaa dib ugu tiirsatay kursigii baabuurka. askarigii oo hadalkii u sii wada ayaa yidhi, dhaawaca oo aad u badan awgeed ayay dhakhaatiirta shaqada joogtay ku yaraatay, sidaa awgeed waxaan raadinay dhakhaatiir kale oo dheeraad ah. waxa uu sheegay in xafiiska sirdoonka Falastiiniyiintu uu soo siiyay xogteeda iyo halka laga heli karo, tilmaamahaasna ay ku yimaadeen maqaaxidii ay joogtay ee ay ka soo kaxeeyeen. inta ay neef dheer qaadatay ayay si carara ugu qaylisay askarigii, dhaqan dhammaantiin dhaqamo ayaa tihiin, ma sidan ayaa dadka martida idin ah ula dhaqantaan? waxay askartii ugu hanjabtay inay qaabkan ay ula macaamileen ay si rasmi ah uga ashtakoon doonto Yaasir Carafaad. askartii
oo arkayay inay gabadha ka nixiyeen ayaa erayo raaligelina ku boobay, waxayna mar labaad ogaatay inay sii wadi karto shaqada ay u haysay sirdoonka Yuhuudda. Waxay ka qayb qaadatay gurmadkii caafimaadka ee loo waday dadkii ku waxyeeloobay weerarkan ay soo qaadeen Yuhuuddu. Waxaa xusid gaar ah mudan in weerarka Yuhuuddu ay ku soo qaaday uu sirdoonka Israa'iil ka helay Amiina oo sheegaysay inay goobahan saldhigyo ku leeyihiin kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin. Waxaase yaab leh in xogtii Amiina bixisay lagu dilay dadkan, haddana laga codsanayo inay ka geysato gacan gurmadka caafimaadkooda. Maalmo yar kadib weerarkaas, waxay Amiina qorshaysatay inay dib ugu safarto Israa'iil. Lama oga inuu ahaa safar ka yimid doonisteeda iyo in xafiiska dhexe ee sirdoonka Mossad oo ah magaalada Tel Aviv looga yeedhay. Intii aan Lubnaan ka amba bixin, waxay sii martay inta badan mas'uuliyiinta reer Falastiin ee ay isbarteen si ay u sagoodiso. Waxay dadka oo dhan u sheegtay in safarkeedani uu ku jaaysan yahay magaalada Vienna ee xarunta dalka Usteri. Saaxiibadeed iyo dadka xiriirka fiican uu ka dhaxeeyay ee ay u aragto inay isweydiin karaan sababta safarkeeda, waxay u sheegtay inay isu soo diiwaangelinayso xubinka noqoshada urur caalami ah oo ka shaqeeya daryeelka ubadka. Waxa ay ku soo noqotay gurigeedii Vienna oo marka ay kadinkiisa soo gashay ay dareentay wehel la'aanta ay la joogtay iyo xusuusta ayaamihii wanaagsanaa ay la qaadatay ninkeedii ay jecleed ee Mooshe. Habeennimadii ay gurigan u soo hoyatayba waxay dhex jibaxday buuro walbahaar ah iyo badweynta xusuusaha jacaylkeedii ka alkulmay gurigan ay caawa hurdo iyo firaashkan ay ku jiifto. Hurdo indha iskumay keenin, waxayna nafta ku maaweelinaysay daawashada cajaladaha xafladii arooskeeda ee iyada iyo Mooshe iyo sawirrada uu jacaylku ka muuqday. Markii uu waagu baryayna waxay raadsatay dumaashadeed Saara oo iyadu sidii ugu noolayd magaalada Vienna muddo saacad ku dhow ayayna kalkacal iskula ilmeynayeen labadoodu markii ay is arkeen. Amiina iyo dumaashadeed Saara waxay safar booqasho isugu raaceen degmada yar ee Westendorf oo ay iyaduna sidii u sii deganaayeen qoyska ninkeedii geeriyooday. Waxay maalmo madow la soo qaadatay qoyskii ninkeeda oo weli ku guda jira murugada wiilkooda aan geeri iyo nolol midna lagu sheegi karin. Waxay ku cadaacalayeen qof baa dhinta oo la aasaa, ilaan qof baa la caddeeyaa inuu cadow u gacan galay. Waxay ku samri lahaayeen haddii labadan arrin midkood uu wiilkoodu ay ku ogaan lahaayeen. Murugadaas lafteedu waa ay la qabtay qoyska, laakiin markan arrin kale ayaa kaga xanuun badnayd. Waxay xasuusnayd in Mooshe qoyskooda uu weligii deganaa Usteri kuna qanacsanaayeen noloshooda oo ay doonayeen inuu wiilkoodu kula noolaado Usteri. Waxay og tahay inuu qoysku mar horeba diidanaa fikirka uu wiilkoodu ku tagay Israa'iil iyo go'aankooda oo ahaa Mooshe markuu waxbarashadiisa dhammaysto inuu dalkan Usteri ka raadsado shaqo. Laakiin cidda sabab u ahayd inuu hamigiisa ay gasho ku noqosho Israa'iil waxay ahayd Amiina. Inkasta oo aanu qoysku tusin wax colaad iyo calool xumo ah, haddana arrintan iyada waxay ku haysay calool xumo iyo wejigabax aad ugu sii batay markii ay qoyska Mooshe hor tagtay. Waxay isku dayday inay qoyska u muujiso sida ay u jeclayd ninkeedii hore, ilaa haddana ay diyaar u tahay inay u aarto. Laakiin waxay gashay qalad weyn oo dhinaca sirdoonka ah. Waxay jabisay mid ka mid ah xeerarkii udubdhexaadka u ahaa shaqadeeda basaasnimo oo ahaa in waxa ay ku hawlan tahay aan la ogaan, garashaha joogtee xitaa dad kuwa ugu xiga. Waxay ilowday darsiga loo dhigay ee ahaa sirdoonku ma laha saaxiib, ma laha ehel iyo walaal, ma laha macaariif, waa kaliya raadi oo galgod kasta oo war ku jiro, isuna ekeysii qaab kasta oo aad filayso in qofka aad ka qarin karto shaqadaada runta ah. Garasho xumo iyo doqonnimo mid ay ka ahaydba Amiina iyadoo hortaagan qoyskii Mooshe oo ay ku jirto saaxiibadeeda dumaashiga ah ee Saara, ayaa si cad ugu faantay inaanay weligeedba iloobi doonin jacaylkeedii Mooshe. Hooyo, aabba iyo walaalba waxaad igu ogaataan inaanan hurdo ledin ilaa aan kun jeer u aaro ninkaygii Mooshe. Inankiinnii Mooshe waxaan idinkugu bishaaraynayaa inaan hadda ku guda jiro aargoosigii oo aan maalin kasta u aaro Mooshe, ayaa ay ku tiri qoyskii ninkeedii geeriyooday. Waxay si baleer ugu sheegtay in sababteeda ay maalin kasta u dhintaan dad Carbeed oo ay ku daba joogto dhiigga ninkeedii. Waxay qoyskii Mooshe uga warrantay xogo badan oo ay ahayd inay sir ahaadaan. Nasiib darrase waxaysan ka warqabin xog muhiim ah oo laga yaabo haddii ay ogaan lahayd in ilaa xadkan ay sabruqateen. Tusaale ahaan, ma oga in dumaashadeeda ay saaxiibaha yihiin ee Saara ay muddooyinkii dambe aad u dhex gashay urur dhalinyaro ah oo ka jira Yurub, gaar ahaan ururka la dhihi jiray Hibis oo ahaa urur aan danayn kala duwanaanshaha jinsiga iyo jinsiyadaba. Saara waxay isbarteen nin dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo ay urur ku wada jireen. Wiilkan aabihii waxaa dishay Yuhuudda, wuxuuna ku soo koray nolol agoonnimo ah oo aad u qaraad. Waxaa mar kasta qalbigiisa ka buuxday colaadda iyo nacaybka Yuhuudda.
agoonnimadii ay yuhuudda ku sababtay ayaa keentay in waxbarashadiisii asaasiga ahayd ay burburto islamarkaana aanu gaarin heerka aqooneed ee khayrkii ay ku badhaadheen. qaaradda Yurub ayuu muddo ka hor u soo tacaburay, laakiin noloshiisa Yurub waxba kama ay bedelin duruufihiisa nololeed. Saara kumay farxin warka Aamina ee ah inay ka qayb qaadato laynta maatida reer Falastiin, laakiin Aamina waxbay kama dareemin shucuuraha saaxiibteed. markii ay nasatay waxay dib ula soo baxday baasaboorkeeda Israa'iiliga ahaa oo ay u duushay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israa'iil. waxay xiiso badan weli u qabtay inay sii wado howlaha basaasnimo iyo inay weli ku sii jirto hawsha ay ku sheegtay inay ugu aarayso saygeedii. Amiina oo xusuus qorkeeda kaga warramaysa safarkeedii Vienna waxay qortay maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18 bisha sagaalaad sanadka 1973 waxaan soo booqday gurigii magaalada Vienna aan ka deganaan jiray. socdaalkaygu waxaa ku jahaysnaa Israa'iil, laakiin waxaan ku hakaday Vienna si aan u sii nasto islamarkaana u sii arko qoyska ninkaygii Mooshe. markii aan salaanka gurigayga Vienna sii fuulayay, jirkaygu cabsi ayuu la gariirayay, waxaanu ku dhici waayay inaan albaabka furo. markii aan layrka shidayna waxay indhahaygu qabteen sawirka Mooshe oo ku dhegsanaa gidaarkay soo eegaya. waxa uu ahaa sawir aad u weyn oo ku labisnaa dareeska militariga. inta aan qoraaradii dusha ka saarnayd boodhkii fuulay gacanteeda kaga masaxay ayaan si niyad ah u dhunkaday. xidhmo u baxa oo nooca Mooshe jeclaana oo aan siday ayaan sawirka dhinaciisa sulay. waxa ay gala dareena in dhoola cadayntiisii quruxda badnayd ay markan tahay canaan ka soo burqanaysa qalbigiisa. waa run, caani kama badna. waxaan xasuustay doqonnimadii aan sameeyey iyo sidaan anigu Mooshe ugu dhiirigeliyey sababtii dhimashadiisa. markii aan ku dhiirigeliyey inaan u guurno Israa'iil, waxaan isku dayay inaan soo nooleeyo dhoola cadayntiisii, laakiin kuma guulaysan. sawirka horkiisa ayaan jilbahayga dhigtay oo aan bilaabay oohin. waxaan ka baryay in ciilkaan u qabo uusan igu soo xanuujin. waxaan ka codsaday inaanu iga cadhoon. waxaan u ballan qaaday inaan waari doono, kama hari doono oo aristaada ilaa indhahayga ku arko hilba carbeed oo gogo'aya oo sida ilaha biyaha la dhiigu uga burqanayo, ilaa aan arko 1,000 af oo carbeed oo u barooranaya raggoodii aynu dilnay, ilaa aan arko 1,000 hooyo oo carbeed oo curadadoodii waayay, ilaa aan arko 1,000 wiil oo dhallinyaro carbeed ah oo xubnaha jirkooda qaar ka mid ah go'an yihiin. markaas unbaan hurdo ladayaa. markii aan intaan idhi ayaan kor u eegay sawirkii Mooshe. waxay indhahaygu ii sawireen dhoola cadayntii niyadsamida ahayd aan ku aqaanay oo dib u soo noolaatay. waxaan dareemay shucuurtii ay xasilin jirtay marka uu labadiisa gacmood dhexdiisa ay gasho si uu laabtiisa igu xajiyo. waxaan Mooshe ka baryay inuu iga daayo canaanta. Vienna waxay uga sii duushay dhinaca Israa'iil oo ay doonaysa inay muddo gaaban xarumaha Mossad ku soo qaadato koorsooyin dheeraad ah oo ay ku sii kordhin karto xirfadeeda basaasnimo. kulankii dhagarqabayaasha. Amiina Israa'iil kuma ay lahayn saaxiibo marka laga reebo dhowr nin oo ka mid ahaa saraakiisha wakaaladda sirdoonka ee Mossad. kuwaas ayaan kaga hor yimid gegada diyaaradaha. waxay indhaheeda ka akhristeen deel badan iyo diif ay soo martay Amiina. sidaa awgeed waxay toos u geeyeen gurigeeda, waxaana ka dalbadeen inay waraysiga iyo kulamada dib u dhigato oo ay marka hore nasiino fiican qaadato. intaa oo keliya ma ahayne si looga ilaaliyo in cidlada guriga ay xasuusto duuliyaheedii dhintay, waxaa loo keenay dhakhtarad cilmi nafsiga ku takhasustay oo xaalkeeda si dhow la socota. dhakhtaradan oo magaceedu ah Suhayra waxay ahayd Yuhuudiyad asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq. Suhayra waxay aad uga shaqaysay in Amiina ay dejiso islamarkaana u fududayso dhexgalka bulshada Yuhuudda si loogu gogol xaadho inay aakhirka degto Israa'iil, taas oo ay ka muuqato sida durbadiiba ay sirdoonka Yuhuudda ugu qanceen shaqada Amiina. waxay muhiimadda ugu weyn ahayd in Amiina laga dhigo qof si fiican ula qabsada Yuhuudda Carabta ah. waxaa la siiyey duruus badan oo afka ah iyo waxbarasho dhinaca dhexgalka bulshada ah. waxaa la baray Carab badan oo Masiixiyiin ah oo ku dhex nool Yuhuudda. Amiina waxay waraaqaha xusuus qorkeeda ee lahayd ku sheegtay in dadka ay maalmahaas baratay ka mid ahaa Munir Rawfa oo duuliye militari ah u dhashay dalka Ciraaq ahaa, kaas oo sanadkii 1967 diyaarad nooceedu ahaa MiG oo lagu sameeyay dalka Ruushka kala soo goostay militariga Ciraaq isuna soo dhiibay Israa'iil. saraakiisha Mossad oo weli wada dadaalka ay ku dejinayeen xaaladda Amiina ayaa qorsheeyay in la isbaro duuliyahan iyo qoyskiisa iyo Amiina oo sheekadeeda laga dareemayay inay xiisayn lahayd inay hesho cid ay isku dhaqan iyo weliba isku af yihiin. Munir iyo xaaskiisa Maryam oo daadooda 40 ku dhoweyd ayaa si fiican u soo dhaweeyay Amiina. Munir waxa uu uga sheekeeyay waayihiisa uu soo maray iyo dhib badan oo uu sheegay inuu la kulmay bilowgii noloshiisa Israa'iil. waxay indhaheeda ku aragtay duruufaha adag ee ku nool yahay. Munir oo aan aqoonin ku hadalka luuqadda Yuhuudda ee Hebrowga wuxuu waayay saaxiibo, wuxuuna bilowgii hore la kulmay camal la'aan ba'an. waxaa kale oo uga sheekeeyay culayska ay bilowgii ku hayeen ilaalada ammaanka ee sida joogtada loo raacin jiray si ay noloshiisa u ilaaliyaan. waxaa jirtay
maruu bilowgii wax yar u shaqeeyey ciidamada difaaca yuhuudda laakiin wakhti gaaban ayuu waday waxaan u bayray inuu si iskii iskaga shaqaysto si madax bannaan markaas ayuu aasaasay wakaaladdan wararka Amina waxay Muniir in badan ka wareysatay shaqada duuliyanimo ee militariga iyo qaabka uu isku badbaadin karo duuliyaha haddii uu weerar ku yimaado ujeedadu waxay ahayd inay baadho rajada ah bal inay suuragal tahay in ninkeedii Mooshe uu ka badbaado weerarkii diyaaradiisa lagu soo riday weli niyadeeda kamay dhammaan rajadii ay suurtagalnimada in maalmaha ka mid ah uu nolol kula kulmo iyo inay quusato oo ay garowsato in Mooshe dadka aakhiro ku biiray marka ay wareysanayso sargaalkan duuliyaha ahaan jiray waa maray qus ka joogtay jawaabaha ku saabsan ninkeeda ee sirdoonka Israa'iil siiyay markasta oo ay doonto inay ogaato bal inay nolol iyo geeri midowga yihiinna waxay siin jireen jawaabo haa iyo maya labadaba noqon kara Muniir Raufa waxa uu sheegay in diyaaradda uu watay ninkeeda Mooshe ee uu nooceedu ahaa Skyhawk 4H ay tahay diyaarad Mareykanku sameeyay oo casri ah farsamadeeduna u diyaarsan tahay inuu badbaadi karo duuliyuhu waxa uu sheegay in diyaaraddan noocan ah kursiga duuliyuhu isku bedeli karo kursi badbaado haddii khatar soo food saarto duuliyaha kursigaas oo gaarkiisa ula duulo duuliyaha lagana yaabo inuu badbaado Muniir oo inta badan uga faallooday Amina nooca diyaaradda uu watay Mooshe iyo sida ay suuragal ku tahay inuu badbaadi karo ayaa hadaladiisa ku soo koobay haddii nooca gantaal ee lagu dhufto diyaaradda Mooshe uu saarnaa uu yahay Sam 6 waxay u dhowdahay inuu badbaaday oo maxbuus u yahay Suuriya haddiise gantaalka ku dhaca diyaaradda uu ahaa Atto 11 rajo noloshiisa aad u weyn lagama qabo waxa ay u dhowdahay in isaga oo aan gaadhin goosashada deelaayadda ama waxa loo yaqaan baarashuudka ay diyaaradiisu hawada kula qaraxday jawaabta uu Muniir siiyay Amina inkastoo ay ahayd mid cilmiyeysan haddana kumay qancin waayo si la mid ah jawaabihii Mossad ayaana iyadu haa iyo maya midna ugu cadayn meesha uu ku dambeeyay Mooshe diyaaradda MiG ee duuliyahan ula soo goostay Israa'iil waxay noqotay hadiyad farsamayaqaanada militariga Israa'iil ka caawisay inay fahmaan samiiskeeda oo markii hore aanay xog badan ka haynin waxa la aaminsan yahay in diyaaraddan Israa'iil bartay darsi dambe oo ku dhacay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil sanadkii 1967 kaasoo ka caawiyay iska difaacidda iyo soo riista dayuuradaha noocan ahaa ee ay wateen ciidamada dawladda Carabta ee isbahaystay kuwaasoo ahaa Masar, Suuriya iyo Ciraaq duuliyaha reer Ciraaq markuu diyaaradda la soo goostay da'diisu waxay hayso 2 jir waxa uu haystay madhabka Kaatooliga ee diinta Masiixiga xaaskiisa oo diiday in Israa'iil ku noolaato awgeed ayaa sirdoonka Israa'iil u soo saaray waraaqo socdaal oo magacyo been abuurihi ku qoran yihiin waxaana suurto gashay in waraaqahaas ku degaan dal ka mid ah dalalka Yurub dalkaas waxay ka furteen kaalin shidaal oo ay ku ganacsadaan si ay noloshooda ugu maareeyaan Israa'iil waxay Muniir ku abaarmarisay hawsha uu qabtay oo ahayd inuu u keenay diyaarad ay ku fahantay sirta farsamo ee diyaaradaha Ruushka waxaana xogta diyaaradda MiG oo markaas dunidu ku cusbayd u sii gudbiyeen sirdoonka Mareykanka oo isaguna inta uu daraasay soo saaray diyaaraddan difaaceeda iyo waliba diyaarada dagaal oo naqshadan laga dheegtay Muniir waxa uu wadna xanuunkadiisa u dhintay sanadkii 1998 laakiin markan ay kulmeen Amina waxa uu ka shaqeynayay wakaaladda wararka oo isagu iskii u aasaasay una bixiyay al-adwa luqadda yuhuudna ku noqonaysa al-xanuuka waxa xaaskiisa Maryama oo wakaaladdan uga dhigay agaasimaha xidhiidhka dadweynaha Amina waxa xiisa badan u muujisay inay barato lana kulanto ninkan Carbeed ee ay u wada adeegaan yuhuudda dhowr jeerna waxay ugu tagtay gurigiisa oo ay joogaan xaaskiisa iyo caruurtiisa xiisaha ay Amina u qabto duuliyahan ma ahayn oo kaliya xiisaha jinsiyadda ay wadaagaan balse waxa dheeraa iyada oo doonaysa inay ka weeshato xiriiriga ay ku qabto su'aalo badan oo damiirkeedu weydiinayo Muniir markana isbarteen Amina da'diisu waxay hayso 13 jir maariin ah indho waaweyn foodo hore ee tumihiisuna ay markaa un bilaabeen inay go'aan cadadii abeesada Amina habeenkii Muniir waayay aragnimadiisa uga sheekeeyay sida uu noqon karo xaalka duuliyaha diyaaradiisa la soo dhacday waxay fiid hore gurigeeda ku noqotay iyadoo aad u wareersan kana yaaban goorta ay geeri iyo nolol midun ku ogaan doonto yuhuudigeedii ay caashaqsanayd isla habeenka markay gurigeeda ku noqotay waxa uu yimid sargaal sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka yuhuudda sheeko dheer oo u badan ammaan ah geesnimadeeda iyo sida ay nafteeda ugu hurtay danta dalka Israa'iil ayaa uu waqti badan ku qaatay Amina oo aad u dhacsan hadalka mas'uulkan oo ay ka dhansatay sida ay raali weyn madaxdeedu ayuu kaga yaabiyay arrin aysan meeshaba ka filayn marwo dib iyo hawl badan ayaa kugu soo dhacday daruufo adag ee aadna ka soo talowday laakiin imika waad ka nasanaysaa waxaasoo dhan madaxdeeda sirdoonku waxay qabaan aragti ah in hadda wixii ka dambeeya laga shaqeeyo raaxadaada iyo baraarahaaga waxaan caawa kugu imi inaan ku soo gaarsiiyo xiisaha ay u qabaan inay fuliyaan wax kastoo aad u baahato isla markaana kuu soo bandhigo shaqada cusub ee hadda wixii ka dambeeya laguu igmaday waa hubaal in shaqada cusub aad ka heli doonto waayo waa shaqo kugu habboon
halkaas markuu hadalka marinaya ayaa Aamina soo booday oo ka dhex gashay hadalkii. Ma waxaad u jeedaa in shaqadeedii Beirut sidaa ku dhamaatay? Ayaa ay weydiisay. Si toos ah ugu muujiyay su'aasheeda ee waxa uu sii wata hadalkiisii isaga oo xoogaa codkiisa bedelay si uu ugu muujiyay inay arrintani tahay arrin go'aan ah. Shaqadaada cusub waa isla hay'adda Mossad dhexdeeda waadna ka heli doontaa. Aamina uma ogolaan inuu hadalkiisa dhamaystirto ee mar labaad ayay ka dhex gashay sargaalkan hadalkiisa, laakiin markan waxay u hadashay si aad uga qalabsan sidii hore oo ay ka muuqato caro iyo urkutaalo badan oo ka buuxda uurkeeda. Taas weligay ma yeelayo, uguma aanan soo noqon Israa'iil waxaan ahayn in la ii sii xoojiyo aqoonteedana xirfadda sirdoonka u leeyahay iyo in ruux ahaan la dhiso. Waa maxay sababta aad sidaa fudud uga maaranteen adeegaygii? Waxaan idinahay fursad dahabi ah ee hay dayacina. Waad ogtahay badnida iyo muhiimadda ay lahayd xogta aan idinkaga keenay kooxaha wax iska cabinta ee khatarta badan ku haya deegaanada Yuhuudda ee waqooyiga Israa'iil. Waxaan idin daafuray arrimo badan oo idinka qarsoonaa. Waxaasoo dhan waan idin fuliyay anigoo aan idinka helin waxaan ka badnayn $2,000 Mareykanka ah. Sargaalkii sirdoonka oo arkay in caradu ay ku sii badanayso Aamina, hadalka inay joojisaan aanay u muuqan, ayaa ka dhex galay oo yiri, waxaan ka codsanayaa in, laakiin Aamina ayaa si adag uga diiday inuu hadalka kala jaro. Isug aan dhamaystay ayay si adag ugu tiri. Markaasay ku harqisay su'aalo. Aniga hortay miyay dhacday in qof ka tirsan sirdoonka Mossad oo hor fadhiista Cali Salaama oo sheeko la wadaago? Hortay ma heshin cid tilmaam fiican idinka siisa dusha iyo gudaha dhismaha xarunta u ah ururka xoreynta reer Falastiin. Iyada ayaa haddana iskaga jawaabtay su'aalaheeda. Jawaabta aad haysan waa maya. Aniga waad ogtiin in xataa aan gudaha u galay qolka xafiiska u ah Yaasir Carafaad. Waxa aan gaaray heer aan toddobaad kasta 2 jeer la kulmo Cali Salaama. Waxa kaliya ii fududay inaan la kulmo ninka Israa'iil muuqiisa weeday sirdoonkooduna ku daalay. Aragiisa waxa uu ahaa jirkayga. Ammaanka Israa'iil iyo danteeda si loo gaadho ayaan gobnamadeyda ku bedeshay. Waxaan idiin soo qaaday telefoonada gaarka ah ee dhammaan hogaamiyaasha Falastiiniyiinta si aad u dhageysataan hadalkooda iyo xogaha sirta ay isdhaafsanayaan. Dharka ayaan iskaga bixiyay ay kasta kaliya si aad sir iyo xog qoraal ah idinku keeno. Ugu dambeyntii si fudud ayaad ii leedihiin. Mahadsanid. Sargaalka oo dareensan carada Aamina ayaa mar dambe hadalka ku soo laabtay oo yiri, Marwa Aamina, waxaanu ku fikiraynaa kaliya ammaankaaga. Xaqa aad leedahayna ma xaqirayno. Aamina cara ayay gariirtay, midabkeeduna waa isbedelay. Iyadoo carabkeedu weynaaday xanaaq ka batay awgii ayaa ay sargaalka ku tiri, ma iga jawaabi kartaa sababta aan halkan u joogo Israa'iil? Sababta aan u dhex tagi waayay qoyskaygii? Mise waxaa idinkugu filan inaan jeclaado nin Yuhuudi ah oo aan guursaday? Durba ma culays ayaan idinku noqday oo waad i dhabsateen. Sargaalka Yuhuudiga oo ka yaaban caradeeda xaddaafka ah ayaa markale isku dayay inuu dejiyo. Waxaanu ku yiri, Marwa Aamina, arrinku sidaad moodaysa ma aha. Laakiin Aamina dhag jala qomaysiin. Waxay sii wadatay hadalkeedii. Waxay hadalkii ugu soo gabagabaysay, ma ogolaan doono soo jeedintiina xitaa haddii ay keenayso inaan Israa'iil ka tago oo aan dib uga soo noqon. Waxaad u sheegtaa madaxdaada inaanan abad joojin doonin hawshan aan wado, xitaa haddii ay kalifayso inaan isku dhex qarxiyo xafiiska Yaasir Carafaad. Arrinta aadka ugu muhiimsanayd ee uu sargaalka Mossad ka dhadhansaday erayada Aamina iyo dareenkeedii intii hadlaysay bedelmay waxay ahayd sida ay daacadda ugu tahay Israa'iil uguna diyaartaa inay nafteeda u hurto. Sidaa awgeed waxa uu mar walba isku dayay inuu hadalkiisa u dabciyo. Kulankii Mossad, kulankii habeenkii Aamina iyo sargaalka sirdoonka Israa'iil ka tirsanay waxa ku soo dhamaaday midho la'aan. Isla habeenkiiba waxa uu sargaalkan toos ugu tagay madaxdii u soo dirtay hawshan. Waxa uu gaadhsiiyay qayladhaana in haddii aan arrinka Aamina laga gaadhin xal degdeg ah ay dhici karto arrin aan hadhow la mahadin. Warka sargaalkan waa la qaatay, waxaana amar degdeg ah laga soo saaray in Aamina aan ka dhoofi karin madaarada Israa'iil iyo in laga ilaaliyo inay ka baxdo marinada xuduudaha bariga ah ilaa amar dambe. Waxa ay sirdoonka Mossad ka baqeen in iyadoo caraysan ay baxdo. Waxa dhici karta inay qaadato go'aan iyada lidib ku ah. Sidaa awgeed waxa qorshahoodu ahaa ilaa inta xalka Aamina iyo Mossad uu dhinac u dhacayo inaan la ogolaan inay ka baxdo Israa'iil. Dhismaha xarunta sirdoonka Yuhuudda ee Mossad waxa ka dhacay kulan aad u ballaaran oo ay ka qayb qaateen tiro khubaro iyo xeeldheerayaasha Mossad ah. Waxa kulankan ajandihiisa ugu muhiimsan uu ahaa go'aan in laga gaaro Aamina in loo ogolaado inay ku noqoto caasimadda Lubnaan ee Beirut iyo in laga joojiyo loona igmado adeega Israa'iil qudhiisa. Intii aanu kulanku bilaabmaba waxaa dhammaan ka qaybgalayaasha loo qaybiyay qoraal ka hadlaya hawlaha ilaa hadda u soo qabtay Mossad. Caadi ahaan shaqooyinka ay qabtaan shaqada sirdoonku waxay hay'aduhu u qaybiyaan darajooyinka kala sarreeya oo ah A, B, C, D iyo wixii la mid ah. Taas oo macnaheedu yahay in qaybta A ay tahay tan ugu sarreysa. Waraaqaha qiimeynta basaaska ee loo qaybiyay madaxda iyo xeeldheerayaasha ka qaybgalay dhammaan hawlaha ay qabteen waxay ahaayeen darajada A. Dhanka kale waxaa ku cad waraaqahan in Aamina ay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya goobaha khatarta ah ee aanay ka jirin safaarada Israa'iil ku leedahay
oo ay ugu dhuuntaan diblomaasinnimo. Marka dhankan laga eegana waxay Aamina mar labaad noqonaysaa xubin aad u muhiima. Warbixintan loo qaybiyey ka qaybgalayaasha kulankan waxaa lagu sheegay in Aamina ay nafsad ahaan u bugto oo quluub iyo xaalad deganaanshiya la'aana ay maskaxdeeda ku jirto, taas oo keenay sida lagu sheegay warbixinta halista ah in laga filan karo isbeddel kadis ah oo Aamina geyn kara darafka ay hadda taagan tahay cirifkiisa kale. Qoraalka shirkan lagu qaybiyey waxaa lagu sheegay in dhakhaatiirta Mossad ay xaqiijiyeen in Aamina ay ku jirto xaalad caafimaad ee cilmi nafsigu u yaqaano abstract attitude, oo ah in qofku ku dhaco khalkhal dhinaca maskaxda ah oo keenaya inuu qofku si sahlan iskugu bedeli karo mowqifyo aad u kala durugsan. Waxay warbixintan Aamina ku sifaysay qof canaanta badan ee ay nafteeda u geysato self condemnation ay ku keentay xaalad quus oo ay kaga rajabeeshay mustaqbalkeedii oo dhan, iyadoo u aragtay in dhimashada ninkeeda ay sabab u ahayd maadaama ay ku qasabtay inuu yimaado Israa'iil. Waxaa lagu sheegay warbixinta in xaaladdan caafimaad ay tahay mid nafsi ah oo aan u baahnayn in lagula tacaalo kaniin iyo daawooyin badan, balse ay tahay in si nafsi ah loo daweeyo. Waxaa khubarada caafimaadku sheegeen in xaaladani ay sababi karto in qofku maskaxdiisu ay istusto in sida kaliya ay waxan kaga bogsan karayo uu yahay inuu nolosha ka tago. Talada ay khubarada sirdoonka ay soo jeediyeen waxay noqotay in Aamina nafsi ahaan ku bogsanayso in loo diro shaqadan ay xiisaynayso ee basaasnimada, oo sida ka muuqata ay ka helayso nafis iyo kuniyad samaan, maadaama oo ay isku arkayso inuu argoynaysa Moshe oo ay aaminsan tahay in iyadu dhimashadii sababteeda lahayd. Inkastoo ay jireen kuwa ka mid ah khubarada oo hoosta ka xariiqay halista ay keeni karto xaaladdan Aamina iyo inaan si buuxda la iskugu haleyn karin, iyadoo xujadooda ugu weyn ay tahay in dadka duruufahaas kale ku jira ay ku dhacaan xaalad caafimaadka nafsiga la xidhiidha oo keenta in mar kaliya maskaxdoodu ilowdo muhiimadda shaqadii loo diray, oo inta ay taxadarka ammaanka ee laga rabay ka tagto ay ku dhacdo falal iyo erayo fududayn kara in la ogaado. Si kastaba ha ahaatee, tirada badan ee xubnaha shirka joogtay waxay isku waafaqeen in tababaro dheeraad ah oo xirfadeed iyo ruux dhisba loo sameeyo. Ugu dambeyntii, waxuu go'aanka shirkan ka soo baxay noqday in Aamina loo ogolaado inay dib ugu noqoto shaqadeedii magaalada Beirut. Waxaa go'aankan si rasmi ah u waafaqay agaasimaha guud ee Mossad. Isla maalintiiba waxaa laga howlgalay fulinta go'aankan. Aamina waxaa lagu cusumay xarunta sirdoonka ee Mossad. Nin khabiir ku ah sawirka gacanta oo ka tirsan sirdoonka ayaa loogu yeeray kadib inta uu si xeel dheer u dhageystay tilmaamaha ay Aamina bixinaysay ee ku saabsan Cali Salaama, ayaa gacantiisa ku sawiray sida ugu dhow ee muuqiisu noqon karo oo ay Aamina laftirkeeda u sheegtay inuu noqon karo ama u egyahay. Waxaa la siiyey koorsooyin tababaro dheeraad ah, waxaana ballan looga qaaday in toddobaadkiiba 2 jeer oo kala Isniinta iyo Khamiista ay soo dirto warbixinteeda, iyo in maalin kasta oo Salaaso ah 11:02 ay war ka heli doonto xarunta Tel Aviv. Waxaa kale oo la baray qaabka ay u isticmaali karto aaladaha cusub iyo qalabka teknoolojiyadda ah ee markaas ku soo kordhayay hababka waxbasaasidda. Waxaa ka mid ah qalab aan xarig ku shaqayn wireless oo qoraalada la iskugu gudbiyo. Muddadii gaabneed ay Aamina tababarka ku guda jirtay waxaa laga dareemayay isbeddel weyn iyo firfircooni badan oo muujinaysa xiisaha ay u qabto arrintan. Waxaa laabteeda ka dhex ololaya doonista argoosiga iyo hamuumta ay u qabto dhiigga dadka muslimiinta ah. 3 bishii tobnaad ee sanadkii 1973 ayaa ay Aamina subax hore ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv iyadoo u sii jeeda dhinaca magaalada Vienna. Sidii caadadu ahayd, waxaa baasaboorkeeda Israa'iiliga ahaa ka guddoomay sargaal sare oo sirdoonka Israa'iil ka mid ah, balse ku jooga magaca diblomaasi. Waxaana u dhiibay baasaboorkeeda Urdun iyo tikirkii ay diyaaradda ugu raaci lahayd Lubnaan. Aamina waxay habeenkaas ku bariday gurigeedii magaalada Vienna. Maalintii labaad ayay aroornimadii hore u xamaam xidhatay geegida diyaaradaha ee magaalada Vienna si ay uga ambabaxdo Beirut. Safarkani waa uu ka duwanaa kuwii hore oo ay ku tagi jirtay magaalada Beirut. Baryahaas waxay ahayd socod barad, wax qalab ahna may sidan. Maanta waxay noqotay waayo arag, awood buuxdana ka soo qaadatay xarunta laga maamulo hay'adda Mossad. Waxaa intaa u dheer inay sidato qalab casri ah oo hawsheeda basaasnimada u fududeynaya. Waxaa ka mid ah qalabka isgaarsiinta casriga ah oo nooca xarig la'aanta ku shaqeeya wirelesska. Qalabkan waa ay adag tahay in la gartaa, waayo dusha sare waxaa looga ekaysiiyey rikoodh caadi ah, lehna calaamada ganacsi ee uu leeyahay mid ka mid ah shirkadaha rikoodhada sameeya. Shandada ay gacanta ku sidato waxaa ugu jira kitaab quraan ah oo dhowr warqadood oo ka mid ahay inta qalab casri ah quraankii lagaga tirtiray lagu qoray erayo afgarasho ah oo ay isticmaali doonto iyo lambarada sirta ah ee ay adeegsan doonto. Yaa ka shaqeey kara kitaab quraan ah oo baaris u quuraya ugu yaraan marka ay tahay dal muslim ah
lagama yaabo inay cidi baadho, kagama shakaynayaan in xumaan kale ku hoos qarsoon yihiin. Howlgalkii labaad ee magaalada Beirut, Amiina waxay nabad ku gaadhay magaalada Beirut markii inta ay diyaarad ka soo degtay ay dhamaysatay hawlaheedii ayaa ay u soo dhaqaaqday bannaanka gegida diyaaradaha. Intii aanay gaarin goobtii ay ka raaci lahayd taksiga ayaa waxaa ka nixiyay gacan xoog badan oo si xanuun leh loogu dhuftay garabkeeda. Naxdin ayay dhaqaaqi weyday, shandadii gacanta ay ku sidatayna waa ay ka dhacday. Si degdeg ah ayay dib ugu jeensatay iyada oo qabta dareen ah in wejigii labaad ee howlgalkeeda basaasnimo bilowgiiba fashilmay. Waa ninkii Maaruun oo indhaha ku sita muraayad nooca qorraxda laga xidha ah oo madow. Waxay ku fikirtay inay dharbaaxdo, laakiin shaqada ay u socoto iyo danaha ay ka yeelan doonto ayaa muhiim ahaa. Sidaa awgeed, qosol iska keenkeen ah iyo kalgacayl aan laabta jirin ayaa ay ugu dhigtay. Si dhoolla caddeyn ka muuqato inta ay dhabarka uga dharbaaxday ayay tiri, "Waar dhagar qabayahow, ma diyaaradda Lufthansa ayaad adigana ila saarnayd?" Inta uu muraayadda indhaha iska bixiyay isaga oo dhoolla caddeynaya ayaa si aan ujeedo ka marnayn uu garabkeeda taabkiisa uga buuxsaday oo si diiran u xafuujiyay. Markaasuu ku jawaabay, "In badan ayaan meel kasta kaa raadiyey, waan ku waayey. Waxaan xiiseynayay inaad hal toddobaad nasasho igu raacdo. Dalxiisaan ku tegayay Nicosia si aad raaxa igula soo qaadato hal toddobaad oo bilaa buuq ah caasimadda dalka Qobrus." Amiina oo hoos su'aal iska weydiinaysa waxa uu daarnaan karo safarka waxa ay ku doonayay inuu ku geeyo Qobrus ayaa intay afka kala qaaday mar labaad ka daba tiri magacii magaalada Nicosia. Hayg oo aan daadin sida ay arrintan ula yaabtay Amiina ayaa sii wata hadalkiisii, "Waan ku waayey Manuel, Khadiija iyo xitaa waardiyihii guriga ayaan ku weydiiyey." Waxay mar labaad isticmaashay xeeladadii sixirka la moodayay iyada oo iska dhigaysa qof qoomamaynaya in safarka noocaas ay dhaafo. Ayay tiri, "Nin waalan, alayleh nin waalan ayaa tahay. Maxaad hadda kor igu sheegi weyday si aan waqti fiican ugu diyaarsado? Ma waanad ogeynba sidaan u xiiseynay inaan safar noocaas ah kula soo wadaago?" Hayg isagoo farxad iskala garan la oo rumaysan la warkeeda ayuu yidhi, "Doorkan ina dhaaf ee bal aynu hadda wixii ka dambeeya iska warhayno." Iyaduna waxay ugu warcelisay, "Mar haddii aynu imika magaalada Beirut ku soo wada noqonnay, waa aynu wada joognaa." Amiina waxay si fudud uga soo degtay garoonka diyaaradaha ee Beirut iyada oo sidata bastoolad iyo qalabka aynu soo sheegnay isgaarsiineed. Waxa u fududeeyay inaan la dareemin waa baaritaanka garoonka Beirut oo aad u yar, maadaama oo ay Lubnaan tahay dal ku tiirsan dalxiiska. Waxaa ka soo degi jiray dalxiisayaal badan oo si weyn loogu soo dhoweyn jiray dalkaas, lagana ilaalin jiray baaritaanka badan iyo xitaa howlaha madaarka oo ay dhibka u arkaan. Magaalada Beirut waxay xilliyadan ahaan jirtay magaalo ay ku kulmaan ganacsato, hubka sharci darrada ah iyo daroogada ka baayac mushtara, dhaqamada reer galbeedka iyo basaasiinta hay'adaha kala duwan ee sirdoonka dunida. Aroortii labaad, goor subaxnimo hore ah oo ay ahayd 6 bishii tobnaad sanadkii 1973, waxa ay Amiina oo isticmaalaysa qalabkeedii casriga ah ee ay sidatay ay fariintii ugu horreysay u dirtay xarunta Mossad ee Tel Aviv. Gaar ahaan waxay ku socodsiisay sargaal lagu magacaabo Nafiih Shalon. Waa nabad imi, amiirkii Casa waxay la jeeday Cali Salaamee waxa ku maqan yahay Yurub. Waxaan bartay sargaal sare oo Falastiiniya oo magaciisa la yiraahdo Abu Nasir. Maaruun waxa uu ii ballan qaaday inuu geyn doono qaybta farsamada ee shirkadda isgaarsiinta. George Habash waxa uu si qarsoodi ah u tagay Tunisia. Abu Camaar waxa uu la jeeday Yaasir Carafaade. Hargab ayaa haya oo maalmo guriga kama soo bixin. Shixnad daawooyin oo gaar hoggaanka sare ayaa ka timid dalka Romania. Waxaa kala go'an daawooyinka antibiyootiga jeermis dilaha oo si weyn looga baahan yahay xarumaha caafimaadka. Nabaday dambaalka Amiina waxa uu farxad iyo xasilooni badan ku beeray madaxdii joogtay xarunta dhexe magaalada Tel Aviv. Markiiba waxa loo arkay in warkii ugu horreeyay ee ka yimid uu yahay war aad u muhiim ah. Intan waxa si degdeg ah loogu gudbiyay xafiiska kala shaandhaynta si ay u soo gudbiyaan talaabooyinka ay tahay in la qaado. Markiiba xaruntii ayaa u soo jawaabtay, "Waxaan kugu hambalyeeynaa gaaritaankaaga Beirut. Ka warhay dhaqdhaqaaqa amiirka Cas. Abu Nasir waa nijaasi aad uga feejignow. Maaruun hadda kadib ha isku mashquulin." Abu Camaar waxay ula jeedaan Yaasir Carafaade yaa daaweynaya. "Maxaa saaran marka Kevin ku xiranta ka dasayda? Waxaanu ka rabnaa xog ku aadan xarumaha kaydka hubka ee ku yaala xerada qaxootiga Al-Badaawi ee ka tirsan magaalada Talaablis ee Lubnaan iyo xeryaha cusub ee tababarada laga furay qalcadda Shariif." Amiina iyadoo ka duulaysa amaradan cusub ee la soo faray waxay u diyaar garowday inay u dhaqaaqdo ka warkeenista xogtan laga sugayo. Xiise badan ayay u haysay inay soo gudato waajibaadkeeda, tustana madaxdeeda Mossad inay u heelan tahay hawsha loo igmaday. Xilligan waxay aad u kululaaday dagaalkii Masar iyo Yuhuudda. Waxay ku beegneyd goorta ay ciidamada Masaaridu guulaha gaareen ee ay ka tallaabeen jidda hore ee difaaca Yuhuudda oo loo yaqaanay khadka aan laga gudbi karin ee Barlef Line. Waxaa magaalada Beirut ka socday damaashaadyo waaweyn
oo lagu muujinayo farxadda ay carabtu ku soo dhoweeyeen guulaha ay masaaridu ka gaareen dagaalka Israa'iil. Dhanka kale, waxay Yuhuudda u ahayd maalin madow oo dhammaan deegaanadeeda laga dareemayo oohin iyo murugada ku cabiran jabka ay masaaridu gaarsiisay ciidamadooda ay ku naanisi jireen ciidamada aan la loodin. Amiina saameyntani kamay maqnayn oo waxay maalmahaasba la kulantay niyad jab xumo badan. Waxa uu damiirkeedu ku mashquulay dhibta ka soo gaadhay kala duwanaanshaha dareenkeeda wadaniga ah ee jeclaan lahaa inuu farxadda la wadaago dadkan ay dhiigga wadaagaan ee Carbeed iyo jacaylka nila'aanta ah ee ay u qabto Yuhuudda oo faraya inay la murugooto waayaha adag ee soo food saaray Yuhuudda. Cabeesadii dhan rogantay, Amiina waxaa gashay dareen cabsiyeed oo ka dhashay jabkii soo gaaray Yuhuudda, waxayna aragtay in xaaladeedu ku adag tahay, amnigeeduna halis ku jiro. Si ay u badbaado, waxay markiiba dardar gelisay hawsha ay ku gaban jirtay ee ahayd inay tahay dhakhtarad muutadaawacnimo ugu adeegta bulshada dhibban ee reer Falastiin. Baryahaas waxaa kor u kacay dhaqaaqa kooxaha wax iska caabinta ee ku aadan koonfurta Lubnaan oo dhiirasho badan iyo geesinimo ka qaaday guusha Masar ay soo hooyisay. Waxaa safarkiisa Yurub ka soo noqday Cali Salaama oo isku soo dubariday hawlihii ururka xoreynta Falastiin ee Yurub, isla markaana u socday inuu qaybtiisa ka qaato isbedelada cusub ee dhacay xaaladan oo dowladda Yuhuudda ay talada faraheedii ka baxday, isku dheelitirnaantiina ay ka luntay. Kooxihii wax iska caabintu si ay uga faa'iideystaan jabka Israa'iil gaaray waxay weeraro ka soo qaadeen koonfurta Lubnaan, waxayna garaaceen gudaha Israa'iil. Arrintani waxay Amiina ku qasabtay in si ay xog ogaal ugu noqoto waxa dhacaya inay u soo wareegto magaalada Suur ee koonfurta Lubnaan, waxaana hore u sii qaadatay qalabkeedii oo uu ku jiro warlaliska ay xogta ugu tamin jirtay xarunta Mossad. Amiina waxay bilowday inay maalin walba si joogto ah u dirto warbixinteeda hadba waxa soo dhaca, sida markii dambe lagu arkay waraaqo xusuus qorkeeda ay ku ururin jirtay oo la helay. Waxay maalmaha qaar diri jirtay ugu yaraan 5 warbixinood oo sir culus ah oo haddii la ogaado nolosheeda khatar gelinaya. Xarunta Mossad oo dareensan muhiimadda ay leeyihiin warbixinada Amiina ayaa bilowday inay 24 saac ka shaqaysiiso qalabka qabanaya fariimaha ay soo dirayso ama wax loo yaqaan receiverska. Waxay timid deegaanka loo yaqaano Bent Jubayl oo ku yaala koonfurta Lubnaan, 5 kiiloomitir oo kaliyana u jira xadka Israa'iil. Dhiirida intaa leeg iyo cabsi la'aanta noocan ah Mossad abid kumay arag basaasiintooda kale. Waxaa dhacday xitaa mararka qaarkood iyadoo ku guda jirta hawshii dirista fariimaha inay si kadis u arkeen kooxo ka mid ah hogaamiyaasha Falastiiniinta oo goobta u yimid indha-indhayn. Waxaa mas'uuliyiinta ka mid ahaa Abu Iyaad. Maleeshiyada wax iska caabinta ayaa mas'uuliyiintan si heer sare ah u soo dhoweeyay, waxaanay dhageysanayeen khudbado iyo hadallo dhiirigelin ah oo ay mas'uuliyiintani jeedinayeen. Amiina inta ay god gashay ayay bilowday inay dirto fariimo cusub oo sheegaya wararka markaa taagan iyo xaalku siduu yahay. War degdeg ah, war muhiim ah. Abu Iyaad iyo rag kale oo ka mid ah mas'uuliyiinta jabhadda Falastiiniyiinta ayaa hadda ku sugan deegaanka Bent Jubayl. Falastiiniyiinta ayaa hadda ku sugan deegaanka Bent Jubayl. Waxay hadda ciidankooda kula hadlayaan meel 500 mitir bariga ka xigta taaga ku dhegsan biyo fadhiisinka Fandaas. Waxay dhex taagan yihiin 2 geedo waaweyn dhaqso garaaca. Guud ahaanba deegaankaas waxaa jooga ciidan badan iyo baabuur kuwa dagaalka ah waa tiknike ee dhammaantii duqeeya. Meel aad u dhow ayaa aan tagayaa. Mashiinka isgaarsiintuna waa uu sii shidnaanayaa muddo 4 daqiiqo ah si aad uga soo tilmaan qaadataan hirarkiisa. Degdeg ayaa uu soo jawaabay sirdoonka Mossad. Waxaan u sheegay inay goobta ka durugto xoogaa masaafo ah. Ka durug goobta, marka aad diyaaradaha dagaalka aragtana beerka dhulka dhigo, ayuu noqday dardaarankii Mossad u soo sheegay. Sidii la faray ayaa ay yeeshay, waxayna u diyaar garowday inay indhaheeda ku aragto xasuuqa ay filayso inuu dhici doono muddo daqiiqada ah gudahood. Ayaan darase wax isla waqti gaaban gudihii ka war heshay in ciidamadii goobta joogay badankooda ay u kulanyeysteen jihada waqooyi ee goobta ay ku gabanaysay. 5 daqiiqo oo ay ilbiriqsi kasta tirinaysay ayaa dhaafay, waxba ma dhicin. 20 daqiiqo oo kale markii ay sugaysay ayaa ay mar labaad furtay qalabkeedii isgaarsiinta. Waxay xarunta Mossad ee Tel Aviv ku wargelisay in bartilmaameedkii goobtii ka dhaqaaqay. Waxa kale oo ay u sheegtay nooca iyo tirada baabuurta ay wataan, gaar ahaan gaariga uu saarnaa Abu Iyaad, gaariga uu watay iyo jihada uu u dhaqaaqay. Inta ay warbixinta cusub duubaysay ayaa Amiina maqashay guuxa 2 diyaaradood oo nooca dagaalka ee MiG loo yaqaano oo hawada soo galay. Ilbiriqsiyo gudahood waxay weerar ku baabi'iyeen raggii oo dhan. Amiina inta ay waxaan dhami dhacayaan waxay kala socotay godka ay warbixinteeda ka soo diraysay. Indheeda waxay ku arkaysay googa ilbaha meedadka ay diyaaraduhu gumaadeen oo hawada sare ku firdhaya. Sida
ayay ahaayeen howlgalladeeda Lubnaan, gaar ahaan dhagaraha ay ka geysanaysay koonfurta Lubnaan iyadoo qalabkeeda isgaarsiinta sirta sidata ayaana muddo joogtay koonfurta. hadba tuulo iyo xero qaxooti ayay muddo joogtay si ay uga howlgasho cisbitaalada lagu daweynayo dhaawaca iyo bukaanada Falastiiniyiinta. hoostana howlaheeda ayaa ay ka wadatay intii ay socdeen dagaaladii bishii tobnaad sanadkii 1973 kama aysan noqon koonfurta kolba cisbitaal military ayaa ay ka howlgalaysay. waxay noqotay basaaskii ugu horeeyay Mossad oo si dhiiran oo laga yaabay uga howlgala dal Carbeed gudihiis. xataa Elion Cohen oo sanad ka hor dalka Suuriya uga shaqayn jiray Mossad kuma u dhicin dhiirinaanta inta leeg Amiino oo kale. inkasta oo ah basaas halisa oo gaaray heer isagoo Mossad u shaqaynaya uu isku soo sharaxo jagada madaxweyne ku-xigeenka ee dalka Suuriya. weliba Elion Cohen waxa uu dhex galay oo xoogaal u noqday militariga Suuriya iyo saldhigyadooda sirta ay ku leeyihiin buuraha Jolan ama Golan Heights ee Yuhuuddu haysato. waxa uu muddo ku sugnaa furinta hore ee ay isku horfadhiyaan ciidanka Suuriya oo uu ku jiray iyo ciidamada Israa'iil. haddana waxaasoo kalsooni ay naftiisa uu ku qabay iyo darajadaas uu ka gaaray kalsoonida dalka marnaba kuma u dhicin inuu qalabkiisa warlalinta ee uu ku diro warbixinadiisa ku socda Mossad uu si maalinlaha u tabiyo una qaato meel ka baxsan gurigiisa gudihiisa. sidoo kale waxaan tallaabadaas ku dhiiran Korneel Faaruq Ibrahim Al-Fiqi. korneelku waxa uu sargaal ka tirsan ciidamada sirdoonka ee Masar balse si hoose ula shaqaynayay Mossad. waxaa basaas ka dhigay basaaska kale ee Carbeed Hibah Salim. Korneel Faaruq waxa ku dhici waayay ficilka ay ku dhacday Amiina. sidiisa kale ma uu ahayn nin sahlan oo waxa heerka uu joogay inaga filan inaynu sheegno inuu ahaa ninka bixiyay xogihii Israa'iil u fududeeyay inay burburiso dhammaan saldhigyadii militariga ee cusbaa ee ay Masar ka dhisaysay deegaanka kanaalka Suways. raggaas halista ahaa ee sirdoonka dunida ka yaabiyay markii la qiimeeyay ma ay gaari karayn heerka Amiina ka gaadhay daacadnimada ay u haysay Mossad iyo dhiiranaanta xirfadda ku dhisan ee howlaheeda ku qabanaysay. waayo iyadoo teedu ma aysan shaqo ay dhaqaale ku doonaysay ama dana kale, waxay ahayd doonis ruuxi ah iyo waxay u arkaysay argoosi, taasoo keentay inay colaad u qaaddo Carabta guud ahaan iyo Falastiiniyiinta si gaar ah. mar kale ayaynu ku noqonaynaa waraaqihii xusuus qorkeeda oo tiradooda kor u dhaafayo 600 oo bog marka ay dhacdadan dhacay sanadkii 1973. iyadoo ka hadlaysayna waxay tiri ma jirin shay nolosheeda iga xiiso badnaa oo isoo maray dhacdadan maalintan ka dhacday koonfurta Lubnaan oo ku beegneyd 11 bishii tobnaad sanadkii 1973. waxaan xasuustaa qalabkii yaraa isgaarsiinta ee aan sitay, shandadaydii iyo kitaabka Quraanka ahaa ee aan u sitay ujeedada kale. marka aan doonay inaan fariin diro intaan hadalkayga warqad ku sii qorto ayaan gaariga geysan jiray meelaan hubo inaanay cidi arki karin si aan u gudbiyo fariintayda. mararka qaarkood fariin kasta 2 jeer ayaan gudbin jiray si aan u hubiyo. marka aan fariinta ku gudbiyo qalabkayga isgaarsiinta waxaan gubi jiray warqadana hadalka ku sii qortay si aanay cidi dabaday u akhrin. waxaa howlgalkayga ii fududeeyay warqad qoraal ah oo Yaasir Carafaad qodhiisa ii saxeexay, taasoo ii suurtagelisay inaan si fudud u dhex wareego dhammaan saldhigyada ciidanka iyo xeryaha qaxootiga ama xafiisyada ururka xoreynta ee PLO. waxaan si fudud indhahayga ugu soo arkay noocyada hubka ay haystaan Falastiiniyiintu iyo tiradooda. waxaan booqday xeryaha tababarka ee qaxootiga u ahaa Falastiiniyiinta. nasiibkayga ugu weyn ee aan oran karo waan helay waxa uu ahaa in dhammaan hogaamiyaasha reer Falastiin ay igu kalsoonaayeen ilaa xad ay mas'uuliyiinta ururka xoreynta Falastiin igu casuumeen inaan hadal guubaaba u jeediyo askartooda joogtay jiidda hore ee dagaalka. Abu Iyaad ayaa igu casuumay inaan khudbadan u jeediyo ciidamada. waxaa xusid mudan in Abu Iyaad oo ahaa ninka aan naftayda halista u geliyay sidii aan ugu soo hagi lahaa diyaaradaha Israa'iil ee la doonayo in isaga inta ku hareeraysan ay xasuuqaan. maalinta la iga dalbaday inaan ciidamada la hadlo waxaan u jeediyay khudbad aad u qiimo badan, hadal ay ka buuxda qiirada wadaninimo iyo jacaylka qowmiyadda Carbeed. waxaan jeediyay khudbad mararka qaarkood qodhaydo aan isku qiimeeyo qof daacad ah. khudbad qiiro badan oo markii aan ka hadlayo muuqaalka dilka iyo xasuuqa ah ee ay Israa'iil u geysanayso dadka Carabta ah iyo diifta baan ay ka muuqata carruurta agoonta ay aabayaashood ku nafwaayeen dagaalka xoreynta Falastiin aan cabaar oo hindarteed hadalka u jaray. Amiina oo sii wada hadallada ay ku qortay waraaqaha xusuus qorkeeda ee ay kaga warramaysay dhacdadan maalintan ay khudbadda u jeedinaysay ciidamada koonfurta Lubnaan u joogay inay xoreeyaan dhulkooda iyaduna ay u dhex joogtay inay basaasto. waxay qortay run ahaantii waan ooyay markii aan khudbaddeedan dhiirigelinta ah
Falastiiniyiinta ku bogaadinayay inay aarsadaan, inay dhulkooda xoreyntiisa naftooda u huraan, iyo inaanay ka daalin halganka ay kula jiraan Yuhuudda. Intii aan qaan gaaray ma ooyin oohin ka weyn midaas, marka laga reebo oohintii aan u ooyay ninkaygii geeriyooday ee Mooshe iyo murugadii ka dambaysay ee ay noloshaydu dhex muqooratay geeridiisa kadib. Laakiin mar dambe ayaan xasuustay halka aan joogo. Waxaan nafteeda u sheegay in kuwa aan ooyaya ay yihiin kuwii dilay ninkaygii aan jeclaa, kuwa i baday cidladii iyo ciise la'aanta ee aan la ahay gogol aan ku gamo. Aniga oon hadalkii dhammayn ayaan mar qura isdareemay in cidla aan ka ooyayay runtuna ay tahay midda aan sheegayo lidkeeda. Nasiib wanaag, hogaamiyaashii waaweynaa ee goobta fadhiday iyo ciidankii aan la hadlayayba waxay oohinteeda u fahmeen inaan ahay qof ka damqanaya xanuunka qadiyadooda. Waxay ii qaateen qof ka xanuunsanaya dhibta walaalahooda dhibaataysan ee reer Falastiin haysata. Dhammaan dadkii goobta fadhiyay way wada ooyeen, iyaga oo ka qayraysan khudbadda xamaasadda leh ee dareenkooda taabatay ee aan u jeediyey. Arrinta xiisaha leh ee aan xasuustay waxay tahay markii aan damcay inaan shadadayda gacanta kala soo baxo Masar aan ilmada iskaga tiro ee ay gacantayda ku dhacday qalabkii isgaarsiinta ee aan u sitay inaan ku gudbiyo xogta iyo sirta lagu xasuuqi doono kuwaan aan ka qayraysiiyey, ayay ku tiri xusuus qorkeeda. Inta ayaan ku soo koobayaa qaybtii labaad ee taxanaha Aamin